wuxuu yiri Nelson Mandela maalin ayaa ka codsaday qaar kamid ah ilaaladii inay magaalada igula soo dhex lugayaan abaar kadib ayaynu galnay makhaayad waan fadhiisanay qof walba wixii uu rabay ayuu dalbaday inagoo sugayna ayaa waxay indhahaygu ku dhaceen qof fadhiyay hortayda dabcan oo sugayay dalabkiisii ilaaladeedii ayaa ku iri kaca oo ninkaas inoogu yara si uu cunada noola cuno ninkii wuu yimid wuxuuna soo fadhiistay dhinacaygii waxaanu bilownay inaanu cunadii cunno dibco dhidid waaweyn ayaa dhafoorkiisa ka soo horay gacantiisu way jareenaysay cunadana muusa cuni karin kadib markii aan cuntadii dhammaysanay oo uu ninkii naga tagay ayaa waardiyahayga qaaska ahaa wuxuu igu yiri ninkii nala fadhiyay wuxuu ahaa mid xanuunsan mana uusa awoodin in uu si fiican wax u cuno waxaan ugu jawaabay ninkaas wuxuu ahaa waardiyihii igu hayay qolkii aan ku xirnaa xabsiga inta badan waxa dhici jirtay ninkan ayaa ii soo gali jiray madaxa ayuuna iiga kaadin jiray mar walba oo aan dhibaatoodo sidaas darteed ayuu u jaraynayaa cabsi darteed uu ka qabo in aan ka aarsado laakiin akhlaaqdaydu sidaas ma aha aqliyada ku dhisan argudashadu ma dhisto dawlad halka aqliyada ku dhisan isa saamaxu ay dhisto ummad isku xiran xasuusihii Nelson Mandela oo ahaa madaxweynihii Koonfur Afrika